السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo sanadkii 2024 uu yahay waxaan nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia. sababtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. ra'iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa uu codsaday inaynu wada galno understanding in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan. innaga Somalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u weydiisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqlay. waxaynu farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kilomitir badda iyaguna markaaba ay aqoonsadaan qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska 20 kilomitir xeebta ciidamadooda inuu ogolaanay deegaan ciidamadoodu waa liis waa kero ma dhul la siinay bilaashna ma waxaan marayaa arintaasi inay tahay mid labada dalba u dana si xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo la iska kaashado oo dhan. inagu waxaan leenahay badii Ethiopia waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waan laga balan qaadeen. insha Allah berbera waxa ka mid noqon doontaa dekadaha ay Ethiopia soo marayso wixii ay soo dejinayso qayb ka mid ah. kolba inta aan horumarno aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha. insha Allah dhawaan inuu noqdo Ethiopia ay noqoto dalkii u horeeyay ee Soomaaliland aqoonsada annaguna aanu noqono dalkii u horeeyay ee isku ogolaada 20 kilomitir badda iyo waxa aad iyo aad baa mahadsan.